dawadayaal wararka national and international news habeenkan caawa halkaas ayaan ku soo afjaraya sida aad la socotaan arrimaha bulshada ayaa habeen waliba aan yara taabta maalinta isniinta waa 15ka bishan May 2023 ayaan sidii aan maalmihii u hore aan idinku sheegayay wadankan waxa ka bilaabmaya imtixaamadii GCSE-ga imtixaanada GCSE-ga ayaa ugu yaraan 11 subject ah iskuulada qaarkood waa ilaa 9 subject ay ardaydu ay galayaan ardayda saacadaha imtixaanada ay ku jirayaan ayaa waxa weeye ilaa 55 caruurta yara xanuunsanaysa ama autistic qaba ama xanuunada kala qaba ayaa waxa la siiyaa ilaa 40 daqiiqo oo zaid ah si ay markaas kula qabsadaan marka imtixaanadan GCSE-ga markay bilowdaan ardayda xanuunsan gooni ayaa loo fadhiisiyaa waa ardayda runtii ardayda kale aan markaas imtixaanada si toos u galaynin ardaydaasi xanuunsanaya ayaa inta badan waxa la siiyaa saacado zaid ah waxaana dusha kala socda qolooyinka loo yaqaan Senko ayaa wadankan Britain waxay u qaabilsan yihiin caruurta loo yaqaan special needka arday badan ayaa waxay dhigtaan iskuulada dawladdu ay fangareyso qaar kamidna haatan laga dhiga trust waxa la yiraahdaa dhowr iskuul oo markaas intay isku tageen dhaqaalahooda iyaga controlsha dawladana ay dusha ka kabto arinta aan u soo qaatay special needka waxa weeye caruurta special needka ma gaari karaan grade-ka ama levelka ay gaarayaan ardayda kale laakiin waxa la siinayaa in ay galaan imtixaanada iyagoo ku galaya kan ay ardayda kale ay markaas ay galayaan isku mid ma aha oo imtixaanada education authority-ga markay qolooyinka examka ay soo diyaariyaan ardayda special needka si gaar ah ayaa loo eega leebaladooda ay og yihiin iyo warqadaha markaas la siin doono sababta aan qodobkan habeenkan caada special needka u soo qaato waxa weeye waalidiinta caruurtooda ay galayaan imtixaanada maalinta isniinta ay si caruurta special needka fadlan caruurta maalinta birita oo axada haloo diyaariyo wax alaala waxay u baahnayeen caruurta special needka lama mid ah caruurta kale teeda kale dadka ka imaanaya exam boardka ee wadankan Ingiriiska waa dadka kala imaanaya gobolada kala duwan sidii xilligii hore waagii hore ay Soomaalidu ay nabadu ay ahayd wasaaradda waxbarashada waxay u diri jirtay qolooyin loogu talagalay inay imtixaanada gobolada ay ka qaadaan sidaasoo kale wadankan Ingiriiska dadka imtixaanada qaaday waxa laga yaabaa inuu Wales ka yimid inuu Northern Ireland ka yimid inuu Scotland ka yimid marka sababta arintaas loo seenay waxa la diidayaa in wax link u dhaxgalo iskuulka imtixaanka laga qaaday iyo dadkan imaanaya different phase ay kula kulmayaan sidaas darteeda caruurta waa in loo sad abgareeyaa buugaagtooda in markaasi subjectiga ay qaadanayaan imtixaanka ay galayaan waxyaabahaas oo dhan waa inay diyaarsan waalid kasto warqad sidaas oo kale oo imtixaanada ay ku qoran yihiin am sorry halkaas ugu dhiganta ay ku qoran yihiin caruur ayaa ay galaysa Eebbe subhanahu wa ta'ala hal ka noqday waa loogu soo qoray waxa warqadaas ku qoran marka in caruurta la eego qalimaanta isticmaalayaan in la eego calculator-ka isticmaalaya inuu batir u leeyahay waxa dhici karto calculator walaalkiisa ama walaashiisa ay leeyahay 2 sano 3 sano ka hor in uu cunuga u boorsada ugu jiro sidaas darteeda fadlan caruurta xitaa special needka oo kaliya xitaa ciyaalka kale ee imtixaanada ku galaya fadlan maalinta birito axada boorsooyinkooda eega ka jika gareeya qalimaanta inay inka ay leeyihiin markaas qalimaanta caruurta si wax ugu soo dhiganayeen waxa dhici karta in yar inuu qalinka ugu jiro imtixaanada la siinayo ugu yaraan waxa weeye 4 ilaa 5 page oo noocaan oo kala su'aashii waa ay yar tahay warbixintu qorayana aad bay u badan tahay sidaas darteed fadlan caruurta qalimaadka maalinta birita ah laga eego waa caruurta GCSE-ga galaya fadlan qalimaantooda hala eego number 2 calculatorada haday battery ugu jiraan hadaysan battery ugu jiraan nooca scientificada teskada waxay iibiyaan ilaa 13 nooca ee teskada ay soo saarto iyo nooca Sony ay soo saaraan oo ilaa 25 nooca Sony wuxuu ku fiican yahay cunuga xiga ayaa si isticmaal kara ama dugsi sare ku jiro ilaa 3-4 sano waa uu haysan kara hadii cunuga uu calculator-kaasi oo siiba nooca scientificada ayaa laga hadlayaa uu save gareysan karo marka fadlan caruurta imtixaanada GCSE-ga galaya halaga eego maalinta birito axad oo 14 ah in wax waliba imtixaanada ay ku galayaan ay correct u yihiin
teeda kale dharka ay gashanayaan waa in uniformkooda ka jika garaysaan waa in dharka ay gashanayaan aad ka eegtaan waa inuu dharkooda nadiif ahaada kabaha ma aha meeshii lagu tuuro maalintii jumcada ah in kabaha loo geli kabaha luujita kamariya haday kabaha luujita loo marin karo luujitadu waa one ban oo kaliya hadaa dukaamada baanka aad tagtaan ilmaha yara nuuriya oo imtixaanka dadkan qaada examinerka korodooyinda ay saas u taagan yihiin education authority raganka imaanay korodooyinka taagan yihiin waxay eegayaan ardayda imtixaanada galaya habka u labisan yihiin habka u diyaar gareysan yihiin sidoo kale iskuul waliba waxa la shaqeeya qolooyin la yiraahdo education welfare waxa la shaqeeya qolooyinka social service ka ka carartaan oo aad markaas tiraada caruurta bay naga qaataan war caruurtaada lama doonayo ee wiilkaaga inta shaatiga u feerayso oo surwaalkan u feerayso kabahana loo jita kamariyo cunugaaga isagoo habaysan oo nadiif ah oo habi ah imtixaanka gala xilli wanaagsanna ha seexdaan waayo waqtiga aad u kala duwan yahay sida aad la socotaan haatan waxa la gaaray xilligii salaada maghrib cunug hadduu xilligan soo jeedo oo 8:45 daqiiqo ay tahay oo salaada cishaa qaarkood inay dukadaan ay qasab tahay salaadii cunug waxa laga yaabaa ilaa 9:30 inuu salaada cishaa uu ku gaaro hadduu salaada dukaninna waaba kuwa iska seexda marka qaarkood ama mobilada inta meelaha ku xariistaan marka fadlan haday imtixaanada ay ku galaan internetkaaga habeenkii you have to think about it internetyada wadankan waxa uu leeyahay meel ay waalidka ay controlaan waalidka wuxuu hawada ka saari karaa markay tahay 10 o'clock habeenimo guriga internetka ee caruurta isticmaali karaan under 18 inaysan internetka isticmaali karin marka fadlan maskaxda hala furo caruurta fursad hala siiyo caruurta waa inay imtixaanadan GCSE-ga ee levelka ay si wanaagsan u galaan waalidku waa inay markaas ogaadaan mas'uuliyadda ka saaran caruurtooda xilligan GCSE-ga UK ardayga hadduu GCSE-ga dhaco waxa weeye waxbarashadiisa dambe xitaa jaamacadda ay effect gareynaysaa Soomaalida ma oga laakiin waxaad ogaan doontaan wiilkaaga markuu jaamacaddu aadayo ayaa waxa la weydiinaya imtixaanada GCSE-ga maxaad ku baastay waad la socotaan ardayda qaarkood jaamacadaha markay tagaan waxa la leeyahay yes 3 years ayay jaamacadda tahay laakiin 4 years ayaa jaamacadda dhiganaysa way foundation ay siinayaan ardaygaasi GCSE-gii hore ugu soo liitay haatan waxa laga yaabaa ee levelka gradekiisa inuu yara kacay laakiin qolooyinka jaamacadda waxay isweydiinayaan wiilkan maadaama ama gabadhan GCSE-ga ay ku liiteen imtixaankan hay ay ku baasan way iyagu waxa u dara markaa GCSE-ga wadankan GCSE ka socda haddaad GCSE-ga ku fiican tahay ee levelkaad ku fiicnaanaysaa jaamacaddan oo ku fiicnaanaysaa GCSE-aad ku xun tahay iskuulka labadii sano ee jaamacada ee levelka kuma wanaagsanaanaysid lagana yaabe ardayda markay GCSE-ga dhacaan Soomaalida most of them 50% aan kala gooyay konton kamid caruurteena imtixaanada GCSE-ga ku dhacaan sabab waxay ugu dhacaan idin sheegay wiil laga keenay Sweden ama wiil laga keenay Talyaaniga ama gabar oo la keenay wadankan Ingiriiska iyadoo markaas 12 jir ah ayaa iyadoo luqadda Ingiriiska ka seenaa waxa la dhax fadhiisanaya arday u dhalatay wadankan Ingiriiska ama ku dhasheen oo luqadda ay u tahay sida aniga haatan af Soomaali ugu hadlo because wadankan kuma siinayaan fursad ardayga in la yiraahdo ABC ha loo bilaabo no 12 jir ma taha ardayda 12 jirka oo Britishka lagu dhax fadhiisanaya aday ku taala cunugii marka laga keenay Yurubta oo aan luqadda Ingiriiska ka seenin waxa weeye wax uu sameyn kara ma laha imtixaanadii markuu fadhiisto wuxuu ka shaqeyn kara ma laha luqadda ma garanayo hadduu xisaab ka saa laga yaabo xisaabta inuu wax ka shaqeeyo imtixaankii GCSE-ga iyo intii kale kooraysa ama year 9 oo year 10 waxa uu ku mashquulsan yahay inuu luqadda barto waxa uu marka rankiga wuxuu ku soo baasayaa elementary-ga oo very low ah oo ardayda Yurubta laga keenay because luqadda ma garanayaan laga yaabo luqadda suuq inuu barto laakiin grammatical ilmahan markay 3 sano bar jireen iskuulka lagu bilaabay oo ABC lagu bilaabo wadanka ku dhashay oo grammar loo soo dhigo imtixaan ku soo galay ee arday dusha laga soo dul saaray isku mid ma taasana inta badan keenta in caruurta Soomaalidu konton boqolkiiba ee imtixaanada GCSE-ga ku dhacaan yana ka masuula waalidka
wiilkii oo wadankii ku noolaa la qabsaday ama gabadhii oo la qabsatay oo ardayda Finland ama Norway ama Denmark ama Holland la qabsatay ayaa daf inta la soo siiyo UK la keenay hooyadaas aabahaas ma eegayaan danta caruurtooda waxay eegayaan lacagaha yar oo wadamadan laga qaato Ingiriiska hab u badaatay inta ugu badan 90% dadka Soomaalida Yurubta ka yimid arintaas oo soo galaan sidaas darteeda waxa halkaas ka baxay haykalkii caruurteena shilin ayaa waxaan ka dooranay in caruurta dhan naga baaba'an subhanallah haddaad eegto caruurta wadankan runtii la keenay inta badan qadkay ka baxan waayo dantaa tiri ma awoodaan iskuulka markuu tago luqadda ma ka saaya bulina lagu sameynaa Soomaalida sida loogu sheegay arintan ma dhageystaan hooyada aabaha waxa u daran dantooda waxa u daran ayootada ay ku jiraan waxa u daran guriga ay baaska iibsanayaan waxa u daran noloshooda laakiin caruurtii GCSE-ga ku galeysay oo intaad soo musaafirisay oo aad lacag ka dooratay birina inaad oyso ama in jidadka lagu dilo ama inay meelahaas cararaan caruurta Soomaaliyeed dantaa tiri waalidka yiri marka fadlan hab nololeedkeena inay wax ka bedelnaa shilinkaana lagu itixaamayna Ilaahay subhanahu wa ta'ala ka tooga inuu idinka madoobeeyo waayo shilinkan maalinta dhimatana kuma raacay maalmii ugu dambeeyay waxaan aad u maqlay war guri baa Nairobi laga gadaya advertisement Nairobi laga sameeyay anigu waan diiday ani maanta markii la yiraahdo Nairobi guri ka iibso waan diiday waayo shilinkan qaaday waa ogaa in shilinka caruurta yihiin caruurtan alxamdulillah caruurta way kor laakiin in target kaaga inta badan ay tahay lacagta dawladda ay caruurta masaakiinta ay siiso caruurtan waxa loo siiyay inaad tuition ku geyso inaad activity ugu sameyso ma inaad qaday qurax kaliya ka siiso inta kalena guriga lagu iibiyo guriyahaasi ma degayaan waqti un baad ka dilaysaa cunugii tomorrow ku saacidi lahaa jidku ku baaba'ay subhanallah marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala Soomaalida halka cilad oo haysata oo hadaad wada eegtaan waxa weeye Ilaahay shilinkuna way taxam subhanallah keena wadaadka waa shilin raadis oo quraanka ku saar wuxuu leeyahay lacag lagu saar 200 300 war qof baa jirna tacbaana lacag ka doonay hooyo ba xanuunsan lacag bay doonayaan ma lacag ma haysatay waa culimada lacag doonayaan kan foomka ku buuxinaya konton baan 100 baan ku leeyahay kan biirsh baasaboorka rab inuu ku deedo wuxuu ku leeyahay 40 baan ka raba ma umad waalan baan nahay mis umad kale daas ba isweydiin waxaan ku soo gabagabeynaa asxaabi hadda kora waxa dhacay wadaad sida la sheegay wadaad aad magaalada caanka ah oo quraanka umada ku akhrin jiray dadka xanuunsan dadka jiniyada ku dhaca ayaa waashay wadaadka markuu waashay ayaa mid kale waalno magaalada caanka ah ayaa meesha soo maray markaas wuxuu arkay wadaadkii reerka magaalada caanka ah oo la qabanayo inta macbiis inta loo xayro inta la leeyahay wareenka hala asto isagoo uu qosol markaas wadaadkii maxaa loo xirxiraya what's going on the sheikh markaas ay wadaadka kisto yar laba koronta isdhaaftay negative positive istaabtay wixii qarxay markaas yir hal asxaab man ay sameyn kara markaas ay yiri odayash qarkood oo aqalka way dhigayso waxa yiri ninka waalna warkiisa waa dhigaysa aan dhigaysano maxaa sameeyna markaas uu yiri inta jawaan la qaaday jawaanka waa garanaysa Soomaalida jawaanka galeeda lagu shubi jiray waxa markaas uu yiri inta jawaanka la dhaxgeliyo afka inta loogu xiro wabiga laba mar hala quusiyo hana laga soo saaro yiri odaygi jawaana la geliyay oo wadaadka aha oo magaalada caalamka magaalada aha inta la qaad ayaa biyaha la dhaxgeliyay juq ayaa la siiyay wadaadkii biyaha la wada geliyay wuxuu sameeyay warfanay fafafaq intuu yiraahdo ayaa laga soo saaray kii wallahi meeshu saaraya mar labaad laga qaado kii wallahi wuxuu leeyahay in yar ha lagu haay markuu wadaadka yar tacbaanoobo iyo sanafta ku bixin leh ayaa biyaha laga soo saaray markii labaad markii biyaha laga soo saaray jawaanka afka laga furay markaas wadaadkii roo maxaad igrabtiin halkan lagu haaya markaas waxa la yiri sheekh kasta yar galabta wax baa ku gaaray wuxuu ku gaaray marka sidii wadaadkii ku caawinfimaaday marka qofka waalan warkiisana sometimes waa la dhageystaa waayo waxa laga yaabaa wax murti leh
إنه أفكيس أو كسبحه داودي هلا بينكن عاو أسدح يتبنك بش الشناد سنة كلاوي كون أسدح يلباتنك سدح لباتنك بالشوال كون أفر بخلا أفرت ناشونال انترناشونال نيوز هل كاس أيام كسوق بجبينيا أصحابي فضلا عروت الصومالية اتحانات الجلية إلى سبحانه وتعالى عوبرنا اتحانات الرفض يا رب إلى سبحانه وتعالى انت حنون سنة سبحانه وقال إلى سبحانه وتعالى عوبرنا والدك الصومالية إنه قلبي ذو ذا ضيق واي والدك الصومالية قيب أي وحيكي بربرك عروتودا إيجان أو إلهي تصو وناجة مسؤولية دش الله السارة أمانة دش إله وكاسارة عنق دش قبل أما ويلك إله سبحانه وتعالى يوم القيامة كويدنا إلهكم ويدنا يقولك هل كات كيف ستة إله بهن هل كات وحكو سميستة إله بهن أنت ذهب كوت هلا إله بهن أنت دروع كوت هلا أم أنت جاكد أم أنت تاي كوت هلا وهلو ويدنا عنق دشي أي يوم القيامة إله سبحانه وتعالى كويدنا عنق أمانك وياه أمانات دول نبضات لتبت أمانات دوش كاسارا أمانة دا سقفك ووجودا لا سنيه شلنكي الدولة دي سيسان وحلاقا إنها تقلد استعماش دوا وحان لقبانينا ما بقبوا بكرنبو معانكو قببنا شلنكي عنق مسكين كان واعنا كي أدق الهيد واد باب إيسي كي حاجي واد باب إيسي حاجي تي حاجي دوا وباب إيه كمان نبضي ما جرت ده هل كان كقبانينا وهلكا إله لقبخ إله سبحانه وتعالى هل لقبخ شلين كان نسوق الحلال هذا هل كان كبحين الحلال هذا هذا دول قدنا يسينا فضلا هكا قدنين دول دبدا دول كينا كجت هذا أدي ذي قرية تركيا قلقد أدفتايسنا أنا العقل يسينا I'm sorry كينيا مالو اللي يسوى برنيق I'm sorry why I know waxa ka dambeeyay ayaan ogahay dhul shisheeye oo guri laga gata siiba dhulka madowga iyo carabta ay leeyihiin turkigana haba sheegin oo dawladda biritada isbedesho saameyn weyn ay ku yeelanaysaa kumanaan Soomaali oo guri halkaas ku leh marka fadlan waxa idin leeyahay hadaba wax gadanaysid horta dhulka deganta oo UK dhulkanas nabadi ayba ka jirtay at least gurigaad ku nooshaa iibso intaad Nairobi ad guri ka gadan lahayd ama Dubai ad ka gadan lahayd ama Turkiga miskaxdaada ha fikirto caruurtaada base halka ay degan at least guriga ay tomorrow bailiff u ka saaran yeso konsolka ka saaran gurigaaga waaragtay inta hooye inta aabo ooynayso guriga private kaatan laga saaro waayo qiimo jaban ay ku degnaayeen qiimihii la kiciyay cid Soomaaliga ma dhiibi karto konsolka guri ma hayo meelaha la taagan yahay reeraha la dul saaran marka guri ad Nairobi aad ba aadeenin fadlan ka iibso halka aad joogto fikir think yourself subhanallah dhibana haysta asxaabi wararka national international beenka camalka soo gabeynaa Ibraal ka noqdo wararkan iyo wararka loo xiiso badan oo idin soo gudbin doona imtixaanada GCSE ga la socdo ee levelka ay dul saaran yihiin aniga saalim doora asxaabi waxa laga yaabaa marka qaarkood aan hadlay inaan haashan ku hadlo laakiin waa loo baahan yahay waayo caruurtii baabaasan Yurub aan ku dhalnay kuma dhageystaan ma dukadaan wax ma sameeyaan everything is okay mom is okay sheekada waa lagu dhameeyay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته